الرحيم maanta bisha June waa 25 laga bilaabo caawa wasaqda dhexe waxa inoo bilaabanaya toddobaadkii xorriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya si aad ogtihiin 60 sano ka hor ayay xornimadoodii ka qaateen dawladaha Ingiriiska iyo Talyaaniga labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya 60 sano ayaa laga joogaa sidoo kale walaalahan Djibouti oo fishanka calanka Soomaaliya tilmaamayo shanta gees la kamid ahayd waxay iyaduna xornimada qaadatay 7 June oo isla toddobaadka xorriyadda ku jirta marka maadaama saddexdaas qaybood ee Soomaaliya ah saddexduba ay qaateen xornimada toddobaadkan hadda ina ku soo beegana caawa bilaabanaya waxa loo bixiyay toddobaadka xorriyadda sidaas awgeed aniga u mahad celinaya warbaahinta Soomaaliyeed ka soo qaybgalkooda shirkan jaraa'id ee xoog leh waxaan runtii rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha guddiga qabaqaabada xusaska 26 June iyo 1 July halkan rabaa inaan u mariyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo hambalyada munaasabadahaas oo maalmaha soo socda madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyana uu ka hadli doono dabaaldegyo la samayn doono inkasta oo aynu ku jirno waqti adduunka iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaaladan wali la qaadin khatarta xanuunka coronavirus-ka dabaaldegyo waaweyn iyo wax qabad muuqda ayay dawladda nabad iyo nolol diyaarisay 3 sano iyo barkii ay xukunka haysay iyo sidoo kale dawladii ka horeeyo mid waliba iyaduna soo sameeynaysa horumar soo sameeynaysa laakiin sanadkan 2020 waxaan u aqoonsanay sanadkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed si buuxda uga soo kabteen intii suuragal ah burburkiina ku dhacay 30 sano ka hor marka le si buuxda uga soo kabteen wali waxba jira amaan daraa jirta dib u heshiisiin loo baahan yahay jirta arinta Somaliland oo wali taagan baa jirta laakiin wax fiican ka socdaan dhaqaale xumaa jirta shaqo la'aan baa jirta laakiin adduunka oo dhan dawladaha ma jiro ilaahay un baa wax walba kaamila adduunka oo dhan wax walba ma kaamilo dawladaha midiba in uun bay ka gaadhaa adeega bulshada ama adeega looga baahan yahay in bay ka gaadhaa in kamida oo macquul ah baanu ka taagana waad ogtihiin
siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya maanta inay dhammaan joogitaankeedii ama awoodeedii caalamiga ahayd ay soo ceshatay waad ogtihiin dhaqaalaha iyo hawsha dawladda hadda jirta ay ka qabatay oo runtii haddaan coronavirus imaan lahayn hadda ay shaqooyin badan iyo mashaariic badan dalka ay ka socon lahayn hadda laftigeedana rajo laga qabo inay dib u bilowdaan waad ogtihiin adeega bulshada in dawladdu cusbitaallo si lacag la'aana dadka qaarkiis ay ugu yimaadaan ay iyo iskuullo lacag la'aan lagu dhigto in la bilaabay oo meel fiican ay marayso adeeg badan uu jiro dib u dhis dalka uu jiro oo xoog leh markaa qaybihii waad ogtihiin amniga in ciidamadeenu ay hadda awood u leeyihiin inay amniga dalka sugaan sida Muqdisho ka arkaysaa almost dadkii nabadiidka ahaa laamiyada maragtay dadka Soomaaliyeed ku qarxin jiray wali dib way geysanayaan laakiin 90% ka badan waa la dhimay gobolladana ciidankeena ma wajihi karaan alqaacidadu way baaba'ayaan telefoon baa u haray inay meelaha ka soo dirdiraan marka amnigana waxa laga gaaray horumar weyn oo hadda kadibna aan rajaynayno in ciidamada qalabka sida awood u yeelan doonaan inay geed kasta iyo tuulo kasta dalka Soomaaliya kamida gacanta ku dhigaan marka horumar weyn ayaa socda shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa inay weyneeyaan munaasabadahan oo ah wax u dhaxeeya oo ay wada leeyihiin sharafkoodii karaamadoodii jiritaankoodii weeye maalmahan dad Soomaaliyeed oo ina ka horeeya awooyaasheena iyo kuwa wali nool ayaa u soo halgamay oo u dhintay marka adduunka oo dhan markii dadku waxay leeyihiin munaasabado iyo marxalado ka dhaxeeya oo aan ku kala duwaneyn oo sharafkooda ayay leeyihiin dadka adduunka markii munaasabadan oo kale ay joogaan qof waliba bil ka hor buu community-gu isu yimaadaa xaafadooda hagaajistaa laamiga xaaqa guri kasta calan suraa dabaaldeg personaala oo aan dawladi ku abaabulin ayay sameeyaan dadka Soomaaliyeed saasa laga rabaa waxaad arkaysaa guri 5 dabaqo meel dhisanayo meel calanka uu suro aan lahayn guri kasta in calanka la suro way waa jiritaankaagii way waxa laga garanayo waxaad u taagan tahay way marka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda maamul goboleedyada runtii aan amaanayo qaarkood inay guddi kaayaga la mid dhiseen sida Koonfur Galbeed oo kale waxaanu ku amaanaynaa inay iyaguna sidaas oo kale u weyneeyaan oo waxa Soomaaliya ka dhaxeeya weyneeyaan muranka iyo waxa dawladda Soomaaliyeed ama dawladda dhexe iyo inaan waxa Soomaalidu ku kala qaybsatay kor la keenin waxa ay ku midaysan tahay iyo waxa ka dhaxeeya wanaaga in kor la keeno oo ayaguna munaasabadaha toddobaadka xurriyadda magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan caasimadaha maamul goboleedyada oo dhan oo aan filayo dabcan inay sidaas aan u sheegayo ay uga socoto inay xuskaas weyneeyaan 16 Juun iyo wiiga oo dhan halkan magaala madaxda dalka Muqdisho iyo dawladda dhexe waxay qorsheynaysaa in ay toddobaadkaas oo dhan ay muujiso dabaaldeg oo waliba dabaaldega sanadka uu ka duwan yahay dabaaldegyadii hore kuwii hore xafladay ahaayeen kuwani waa mashaariic la furayo waa wax qabad la muuqda way oo la taabtay way ayaad arki doontaan maalin kasta wiigaas ama gobolada dalka meel kamid ah mashaariic laga furaya ama magaala madaxda dalka Muqdisho laga furaya marka dabaaldegaygu maadaama aanan bulshadii badnayd isu wada keeni karin xaaladda caafimaad ee adduunka iyo Soomaaliya ku jiro awgeed waxaan culays ka saaraynaa inaan dadka Soomaaliyeed markii hore qorsho ahaa in aanu tusno wax qabadka dawladda Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya maanta jirta ee lagu faani karo oo aan filayno in qof kasta oo Soomaaliya ka baxo wixii dhibaha haysta haddii shaqo la'aan hayso dhawaan haddii duruuf amni ay hayso mid walba laga kor qaado oo sida bini aadamka adduunku u nool yahay u noolaano oo ay tahay nabad iyo nolol oo magaca hadda dawladdan u taagan tahay qaadatay ay tahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin shalayto halkan waxaanu kula shirnay agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay waxaanu ka codsanay inay nala qaadaan oo nala weyneeyaan oo aanan anaku dirin qaar badanna way istireen oo aragtay telefishinna badan oo halkan jooga ayaa almost week waday hadda inay maragtay xusaan taariikhda Soomaaliya iyo halgankii la soo maray iyo wixiina ka halaabay iyo hadda sida waxay ku hagaagayaan ayay runtii muujiyeen waana ku amaanaynaa inta kalena waxaanu leenahay waxaanu idinka sugaynaa inaad maragtay weyneysaan munaasabada
Sugoyari la daytay